waxa kamid aha hadallada la yaab kale wuxuu leeyahay diintanadii hore ee sunniga ahayd ee saxiixa ahayd muxuu ahay guntiinada lahayd buu leeyahay diintanadii hore ee sunniga ahayd ee saxiixa ahayd ee guntiinada lahayd markaas dadkii fadhiyay mar kale qoslaya diintanadii runta ahayd oo sunniga ahayd oo saxa ahayd oo guntiinada lahayd Thank you very much. anu waxaan u maleynayaa dadkaasi waa dad muslimiin waxay la yaabayeen aqoon daradiisa ay la yaabayeen asaguna wuxuu moodayaa baan u maleynayaa inay u qoslayaan oo u jiibinayaan ayay 6 salaadood baa hooyada tukan jirtay markuu leeyahay war 5 baa leeyahay 5 waana lagu qoslay war 5 marka yaani teeway diinta ayada diinteeni hore ee sunniga ahayd ee saxiix ahayd ee guntiinada lahayd waa tee idinku meel garan kartaa madiin noocaas in unagu lahayn hore Soomaali diin hore noocaas ma lahayn Soomaali islaamka diin u ahaa quraanka diin u ahaa sunnada nabiga diin u ahaa kutubtii fiqiga ee shaafiiciga ee culimadeenu akhrin jirtay baa diin u ahayd ayadana si cad kutubta ka bilaabatay ugu hooseysa waxa ka bilaabanaysa cawrada dumarku ka xaqay waay maxaa looga baahan yahay asturkooda xaqay asturaya marka diinta noocaas xaqay Soomaali ku haysatay waay la yaab leh waxaan aad ugu boogay ilaahay khayr ha siiyo gabadh Soomaaliyeed oo intay qabsatay hilfaha u qaatay social media ku jirta oo muxuu ahay kelimo kooban oo qurux badan ba ka tiri waaba nagu filan lahay laakiin ujeedadeedu wax weeye waxa ka dambeeyay inaan faahfaahiyo aqoonyahan Soomaaliyeed oo madal wada jooga ku dhex qaawiyay hooyadii isaga dhashay hooyaday weligeed shukama xiran qoraaga weyn ee Soomaaliyeed ee dunida sida weyn looga yaqaano ee Nuuruddin Faarax ayaa weerar aan u meel dayin ku qaaday xijaabka iyo asturnaanta haweenka asagoo garan waayay tirada salaadaha maalintii muslimiintu ay tukadaan hooyadii isaga dhashay ee ifka keentina golo ku dhex qaawiyay Nuuruddin waxa uu taagan yahay eegmada dumarka qaawan inay tahay nimco Ilaahay oo la fiirinayo dhacdadana waxay ka dhacday bandhiga weeyga Soomaalida ee lagu qabto wadanka Ingiriiska kana waa muuqaal lagu duubay oo baraha bulshada la keenay gafka aan la dhaafi karin ee Nuuruddin Faarax waxaan ka horeysiinaynaa madmadowga mashruuca dhaqanka Soomaalida ee lagu soo gabanayo qoraan Nuuruddin Faarax oo bilado caalami ah ku helay qoraalka ifkana u soo saaray 14 boog ayaa mid kaliya xataa aan af Soomaali ku qorin oo faramarnaan ka taagan afka iyadoo mid kamid ah buugaagtiisa uu dhawaan af Soomaali u turjumay wariyaha weyn ee Rugcadaaga Cabdisalaan Hereeri oo buugaas u bixiyay feer qaloocan waxa isweydiin mudan muxuu Nuuruddin Faarax Soomaalida u sheegayaa isagoo oo la soo hortaagan waliba ummadaha la baabiinayo afka ayaa laga dilaa soo uma muuqato in isaga mar hore la duubsaday haddii uu Nuuruddin jeclaysanayo maryihii hidaha u ahaan jiray Soomaalida waxa isweydiin mudan sababta mar qura aanu afka uga dhicin labadii qayd ee ragga Soomaaliyeed hidaha u lahaa inay xidhaan oo maanta cid xidhataaba aanay jirin Nuuruddin mar qura kuma baaqin in raggu dharkaas xidho isagu weligiis muu xidhan marka wixiisu dhaqan ilaalin maaha ee waa dumar qaawin Soomaha xijaabku waa cibaado Ilaahay ku adoonsaday adoomihiisa haweenka xijaabka istadista ama is-asturaadda ay haweenadu jirkeeda asturtaa maaha caado ama dhaqan ay carabtu leedahay ee waa waajib Ilaahay ku kor yeelay haweenka islaamnimada qaatay ee muslimiinta maaha arrin uu qofka dumarkii u leeyahay ikhtiyaar iyo doonis inuu xidho iyo inuu iska daayaba xijaabka suuratul ahsaab aayadda 9 ayuu Ilaahay
nebi maxamed naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee ku faray. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. muuqaal lagu duubay mobil ayuu Nuurudiin Faarax oo ka hadlaya bandhiga Somali Festival Week waxa uu si arxan daran u duraya xijaabka iyo diinta islaamka ba asagoo shangar sameynaya. wuxuu xijaabka ku tilmaamayaa teendho isagoo sheegaya in ay tahay dhaqan Carabeed. teendhada mar dhow bay noqotay weligana teendho ma xirnaa. labo wuxuu sheegay in hooyadii ay weligeed shuuko ama xijaab xiran isagoo oo raaciyay in uu ku arki jiray xijaabka ilmo Carab Yamani ah oo ay dhashay hooyadiis walaasheed ama habaryartii. hooyaday weligeed shuuko ma xiran. dadaanu qaraabanahay baa jira hooyaday walaasheed baa waxay dhashay ilmo Yamani ah. gabdhahaasaan ku naqiinay shukada xiran. saddex guntiinadu waa dhar ay xidhan jireen Soomaalida. dharkan ayaa waxa muuqan jiray qaar ka mid ah cawrada dumarka. sidaa awgeed wuxuu Nuurudiin eegmada cawrada u sameynayaa qiil ah in ay wacan tahay in la arko nimcada Ilaahay. khayraadka guntiinada waxa weeye Ilaahay nicmadiisna waa la arki karaa. afar Nuurudiin wuxuu sheegay waxa uu ku tilmaamay Free Islamic. kabacdina waxa soo muuqanaysa aqoon darada ka haysata diinta islaamka isagoo sheegay in hooyadii tukan jirtay 6 salaadood. ogow hadda salaadu waa tiirka labaad ee islaamka. Soomaaliya pre-Islamic bay ku jirtay. hooyaday ma pre-Islamic bay ahayd. hooyaday islaamkay maalin waliba 6 bay tukan jirtay salaad. shan wuxuu masabiday diinta islaamka isagoo oo sheegay in diintu leedahay guntiino taas oo noqonaysa in islaamku ogol yahay in la isqaawiyo. diintanadii runta ahayd oo sunniga ahayd oo saxa ahayd oo guntiinada lahayd. waxaan dib u xasuustay gabaygii Abwaan Axmed Ismaaciil diiriye Qaasim uu ku lahaa dusha midabka Soomaali baad dugulka moodaaye misna lagu ma diirsaday qalbigu waa dirkii kaarale. waxa isweydiin mudan daawadayaal sababta Jaamac Muuse Jaamac iyo bahwadaagtiisu ay xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa iyo wiiga Soomaalida ee Ingiriiska lagu qabto ay ugu soo marti qaadaan dad laga yaqaan oo sumada xun leh iyo dad dhaqanno kuwii Soomaalida ah sida nin oo magaca Soomaali sita. ma wada maagayno dhammaan dadka xarunta soo marti qaado oo waxa ku jira qoraayo Soomaaliyeed oo waaweyn abwaano dhaqan yaqaan iyo diin aqoon intaba leh balse waxaan u jeednaa kuwa magaca Soomaalida sita ee la doonayo inay Soomaalida ku dayato ee fariimaha guracan sida Nuurudiin Faarax kuwa kale iyo waliba kuwa aynaan aqbali karin ee dhaqanada xawayaanka leh ee ku soo noqda xarunta aragtidan la wadaag daawaday.